السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان أصحابتا كريبتا سو دوادا كسو دوادا تنالك OMAYA Exchange oo idin soo gudbisay mar walbaba warkii u dambeeyay cryptocurrencies-ka iyo sidoo kale warbixino ku saabsan cryptocurrencies-ka oo maalin walbaba aad kala socotaan dhammaan platforms-ka OMAYA Exchange ay ku leedahay social media. Haddaba haddii videogan yahay markii ugu horeeyay ama video ugu horeeyay ee ka socda OMAYA Exchange ee ka soo horbaxa videogan like garay sidoo kalena channeladeena iyo kana sidoo kale follow garay channelkan subscribe saaro si aad markaas ula socoto warbixinada u dambeeyay ee ku saabsan cryptocurrencies-ka maalin walba halkan aan ku soo gudbino. sidoo kale YouTube-keena waxa ku jira cashiro ku saabsan cryptocurrencies-ka haddii aad u baahan tahay in cryptocurrency waxay tahay dad fahansaneen ama maalin walba inaad wax ka kororsato u baahan tahay cryptocurrencies-ka cashirada dheer iyo cashirada gaaban intaba way ku jiraan YouTube-keena waad kala socon kartaa. haddaba maanta waxaan ka hadlaynaa wararkii u dambeeyay ee cryptada ka soo kordhay saacadihii la soo dhaafay February 15 waa maanta 2025 waxaa ku bilaabeynaa New York Stock Market ama wax loo yaqaano New York Stock Exchange wuxuu bilaabay ama wuxuu soo jeediyay US Securities and Exchange Commission oo SEC loo yaqaano inay u ogolaadaan grayscale in ay incorporate la sameeyo ether staking-ka iyadoo oo markaas spotka Ethereum Exchange Traded Funds ETFs-ka in macnaha lagu soo daro. haddii la ogolaado arintan waxay maxaa la yiraahdaa u ogolaanaysaa in grayscale aan garayso ama hesho stake rewards inta lagu diro Ethereum Trust ETFs-ka. warka xiga wuxuu yahay SEC qolada la yiraahdo oo ah Crypto Task Force ayaa waxay engage gareynayaan industries-ka stakeholders-ka. SEC oo saa u naqaan oo Crypto Task Force dhawaan waxay haldigareysay meeting oo ku saabsan ama maxaa la yiraahdaa ay la gashay dad ka kala socda cryptocurrencies-ka dhinacyada kala duwan dad matalayo sidoo kale finance sectors-ka kala duwan traditional-ka ahana ka socdo iyagoo discuss gareynayay ama focus ka saarayay sharciyeynta iyo waxyaabaha la xiriira sida staking-ka iyo guidelines oo exchange traded products-ka in guidelines loo sameeyo iyo sidoo kale framework oo looga hadlayo ama maxaa la yiraahdaa lagu kormeerayo digital assets-ka. arintaas iyadana wax badan ay ka bedeli kartaa suuqa oo regulations-ka waa taqaanaan wax badan ay ka bedelaan suuqa. haddii arintan marka maxaa la yiraahdaa meel fiican ku dhamaatana waxay keeni kartaa in suuqa uu markaas noqdo mid aad looga sii faa'iideysto. waxaa ku soo gabagabeynaynaa incident ka dhacay protocol live stream in lagu guda jiray ninka loo yaqaano maxaa la yiraahdaa business development kuwii hore u ahaa near protocol wuxuu si incident uu u soo bandhigay ama loo arkay images oo asiga personal u ahaa xilli uu ku guda jiray live stream oo public ah. incidentigan marka aad ay dadka cryptada ku jiro ay u hadalhayaan. incidentiga wuxuu ahaa in shaashadii ay ka soo muuqdeen sawiro oo personal ah ama maxaa la yiraahdaa nudity xoogaa ay ka muuqdeen isagoo markaas rabo inuu token tuso dadkii markaas live stream kasana as public ay ahayd. so marka issues-kaas dadka aad u hadalhayaan x-ka dada fiiriso iyadana wararkii u dambeeyay ay kamid tahay. haddaba halkaas ku soo gabagabeynayna wararkii u dambeeyay cryptocurrencies-ka si aad ula socoto marka wararka malinlaha aan soo dhigno marka aan soo dhignana uu ku soo gaaro gambalaalka yar ee subscribe-ka activities ku xiran furo sidoo kalena videogan share garay ama sidoo kalena like garay comment-igana xagga hoos waxaa noogu qortaa waxyaabaha aad maxaa la yiraahdaa isleedahay wararkan saameyn way ku yeelan karaan si aan kaaga discuss gareyno akhyaarta kalena iyagana discussion-kooda ay dhankaas uga soo dhiibtaan. haddaba inta warar noocan oo kale aan ku kulmayno nabadgelyo.